tolku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamaya bilkhayr addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin رمضان كريم dhammaan waan idin salaamay meel walba aad joogtaan xalaqadan waa xalaqadii shanaad ee aan rabo inaan uga hadlo dadka balwada leh ramadaanka inta lagu jiro iyo caadi ahaanba haddii aan ka soo bilaabo afurka oo kale dadka balwada leh qof waxa arkaysaa biyo baasan cabin ku ordahay sigaar ilaahay amarkiisa sigaarkaas uga qiimo badan biyihii laakiin balwaday maxaa ahayd oo sideedaba balwad waa wax qofka addicted ku noqdo balwad wax walba noqon kara qofkii oo maxaa la yiraahdaa sports ku waasho kale banooni balwad uu noqdaa laftarkiisa qof baa cunto iska jeclaada balwad uu noqdaa qof baa iska jeclaada wax uu qof waxa ugu dhigto qofku wuxuu jeclaado kasta oo uu ka maarmin oo kasta balwad noqota laakiin ayada noqota mid caafimaad ah iyo mid aan caafimaad ahayn waxaan rabaa inaan idin sheego dadka sigaarka caba dadka jaadka cuna dadka maxaa la yiraahdaa ii sheeg balwadaha kala duwan hadda ardaydii oo waxba arkaysa tambu wax la yiraahdo saarta waa bahal meeshaas la geliyo ani nin dhalinyaro ahay oo generation koodan kamid ah laftirkooda laakiin absolutely waa ka soo horjeedaa dhalinyarada jiilka soo koraya waxyaabaha badan ee hadda muqaadaraadka ay isticmaalaan qaar baa daawadii ka raadiya maxaa la yiraahdaa balwad darmadool maxaad waxyaabo badan kiniiniyo badan isbitaalo badan sheegtay daawadii hadda business ayadoo awalba hore u ahayd baa hadana dib la sii qaaliyay maadaama balwad noqotay laftarkeeda dad baa isdura oo balwad u noqotay daawadii marka waxyaabo badan baa jira laakiin waxaan rabaa hadda basic inaan ka soo bilaabno dadka sigaarka cabo iyo waxay ku sugan yihiin sigaarka dadka cabo horta caafimaad ahaan waa u dilan yihiin sanbabadooda ilkahooda dhaamisho badan ayuu u geystaa jismiyan iyo maskaxiyanba labadeedaba sababtoo ah ninkaas balwada leh sigaarka cabayo hadduu sigaarkaas cabin relax maba noqon karaba mi fahamtay maba afuri karaba ilaahay amarkiisa amateedkan waa ka xiray dadka balwada leh amateedku waa ka xiran yahay cunto badan ma cunaan inta badan marka sigaarka shilinkooda waa u daran yahay oo jeebkooda uu baabi'inaya qurun waa u dheeryahay looma soo dhawaa kara ninka sigaarka cabay ilkiisa uma wanaagsana qurun dharkiisa oo dhan ka soo uraya caafimaadkiisa uma wanaagsana sanbabadiisa uma wanaagsana wax tar uu wanaagsan yahay meel uu wanaagsan maanta aan sheegi karo ma jirto sigaarka waa wax xun waa wax maxaa la yiraahdaa qofka si walba u dila marka sigaarka dadka ku afuraay waxaan leeyahay bal tartiibsada hal maalin ma jooji kartaan laakiin baakad meesha ka cabaysaan isku daya in aad xabad ama laba ka cabtaan maalintii si aad u soo yareysaan haddii aad iska gooyi kartaanna please and please iska gooya afurka marka sigaarka dadka ku orda iska dhaafa ma wanaagsana biyaha ku afur sida sharciga u afura gadaalda macashada iyo markii taraawiixda loo socdo kala hadda xabada sigaarka iska cabi kartid ma wanaagsana laakiin danta kugu kalifaysa marka xabadaada iyo labadaada iska cab qofka ilaa hal mar wax laga gooyi karay waxa kugu soo dadka jaadka cuna jaado maxaa ahayd biilka reerka waa ka goosanaysaa shilin kuuma haraayo weligaa ma taajiraysid sababtoo wax kugu keedsamay male dadka jaadka cuna saddex ku sugan yihiin maruu fadhiyo uu farxsan yahay oo ninka adduunka ugu wanaagsan uu yahay waa saaxiibkaaga adduunka ugu wanaagsana nin ka farxaansan oo ka galgaceel badan oo ka walaaltinimo fiican ma arkaysid marna waa maruu jiifo xalon oo ilaa soo jeeday uu tacbaan yahay oo maxaa la yiraahdaa oo la leeyahay miskiinka balaha nool ilaahay inuu naxariiso ma naxariis kale malaha waxa waaye waa maruu hurdo saddexda labadaas waay aan soo sheegay midda saddexaadna waa maruu ka maqan yahay uu xanaaqsan yahay oo qaadiriyeysan yahay qof u soo dhawaa kara male qof walba waa la col qof wax siinaya maahan qof kale oo u soo dhawaa kara ma jirto marka ninka jaadka cuno saddexdaas ku sugan yahay caruurtii caano uma gadan karo oo biilkii caanaha ugu gadan lahaa asaa jaad ku fadhiistay asaa tiisii hormariyay waa danayste mid xigta waa farxsan yahay teere caawa ilmihii caanahoodii jaad ku soo gatay farxadiisa lama soo koobi karo dadka shisheeye oo dhan waa u walaal waxa midda labaad ah wuu jiifaa oo xal oo dhan oo qayilaayay knockout waaye تعبان واي ميدا سدحاد ومرو كم قنيا وقادريتين أو قف والبعروتي سان كما أركض نيجي كسر أربع دربحي إنه لا تروج عليه ما كذا كشات كعننا نروش هذا ربع أسكت سدحداس الدنيا كلا كمان مغنى كلا كمان مغنى أنا وحنا مسنا إنه لو حنا غنوا لو جرعبه أو لواني ولو دعية إن الصور نقدان ذات كنوع عسى
taambuu maxaa ahayd waa aragteen wadankan wax walba business uu noqday horta aan u duceyno dadkii dhalinyaradan yararka jiilka yararka inay soo hanuunaan waxaa arkaysaa musqulaha daagiisa waa kusoo arkaysaa jaamacadiyaa ku arkaysaa awl wiilashaa moodi jirta balwada inay hadda gabdhihiyaa ku darsaday oo gabdhihii yararka studentiska ahaa dhammaan waa wada saartaan waxa waaye tiktok waa aragteen waa caadi ka noqotay balwadu wax wanaagsan ma aha neerfihiina dilmaaya ma ogtaa bart meelaha shaana la geliyaa ama hoos ama kor wuxuu geliyaba uu galayaa af qoran waa u dheeryahay shilin waa u dheeryahay awalba asoo studenti ah oo wax lacag maanta lagu taban lahayn $1 yarka uu helo meeshii la rabay inuu save gareysto oo future u dhigto ama waxbarashadiisa jaamacadiisa uu u save gareysto ama gabadha makeup-keeda waxeeda ilaa waa gabar shopping ay u baahan tahay ee u save gareysta taambuu ay kala baxaysa taambuu caafimaadkeeda ugu wanaagsan waa maandooriye maskaxda dhan uu ibir ka dhigaa waa aragteen boqolaal ardaya ma walba qalin jabisa jaamacado badan had jaamacada intaas 500 kun qalin jabisa le damiiniin waa maanta buu qalin hadii la hay maxaa taqaan hadii waxba ma yaqaanaan waqti homework waxay ku dhimeen taambuu iyo waqti xun marka taambuuga iyo chatka iyo sigaarka iyo taambuuga oo dhan uma wanaagsan ramadaanka dhaxdiisa bisha ramadaan waa bil cibaado waa bil khayr badan ma sha Allah ilaahaygiina soo gaarsiiyay ayaan ku xabdinaynaa ilaahay sanadka daman hanuu gaarsiiyo laakiin isku daya bishaan waa bisha kaliya oo qof balwad ka go'i karo oo isku dhaafsii karo sababta inta kale waa la afuran yahay inta kale maanta ku qabanaysa saacad walba ku qabanaysa fiir ilaahan kugu dhaarshay saaka suxuurta hadii kugu dambeys ilaa ay afurka la gaara 12 saacadood maada arag 12 saacadoodna waa ka maarmi kartaa hal xaba dhax gali hadaad ka maarmi karin laakiin isku day ramadaanka dhaxdiisa inaan balwada ka go'daan ma wanaagsana quruxdiina uma wanaagsana jismiina u dilmeysaan caafimaad ahaan uma wanaagsana wax ay wanaagsan tahay malaha marka ramadaankan isku daya in aad balwado dhan iska dhaaftaan assalaamu calaykum ramadaan mubaarak hay badhaadhahaya sabalku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamaya bilkhayr addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka